kusoo dhawow Somali Magazine dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayuu Turkiga ka qaatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya hay'adaha dawladda ee aadka u dhisnaa ka hor burburkii dawladda dhexe ee dalka sanadkii 1991 waxa ugu muhiimsanaa ciidamada qalabka siday oo loo arkayay inay kamid ahaayeen kuwa ugu tayada badan qaaradda Afrika ridistii dawladda militariga waxay sababtay inay burburaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inkastoo sidaasi ay tahay haddana mar walba ammaankeena waxaa ku jira dal walba dadkiisa ayaa dhisa muddadaasi dheer ee qaranjabka iyo dawlad la'aanta ee ka jirtay dalkeena waxaan soo marnay heerar kala duwan dalka hadda wuxuu leeyahay rajo aad u weyn taasi oo ku aadan mar kale dib u dhis in lagu sameeyo ciidanka xoogga dalka iyadoo hay'adaha dawladda ay si tartiib u soo laabanayaan si ay u daboolaan adeegyada dadweynaha ay dawladda uga baahan yihiin dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliyeed dad badani waxay ka muujinayaan niyad aad u xooggan iyo in Soomaaliya mar kale ciidan ahaan ay isku filnaan karto hase yeeshee rayadaasi ayaa hadda u muuqanaysa inay dib u soo laabanayso Soomaaliya oo kaashanaysa dalal badan oo saaxiib la ah hormuudna uu ka yahay dalka Turkiga ayaa sanooyinkii ugu dambeeyay soo saartay ciidamo qaba tababar wanaagsan kuwaas oo dib u soo nooleeya hanka Soomaaliya ee dawladnimada dawladda dhowr ayaa door weyn ka ciyaaray dib u dhiska iyo tababarka ciidamada xoogga dalka iyadoo tababarada kala duwan ee la siinayo ciidanka ay horseeday inay ka soo baxaan kuwa tayo wanaagsan dawladaha Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga iyo kuwa ku yaala wadamada gobolka sida Ethiopia, Uganda, Eritrea iyo kuwa kale ayaa door weyn ka ciyaara tababarka la siinayo ciidamada xoogga dalka laakiin tani markii Turkiga uu ku soo biiray taageerada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa la leeyahay isbedel weyn ayuu hormuud u noqonayaa sanooyinkii la soo dhaafay waxa la soo saaray ciidamo tababar wanaagsan oo aad uga duwanaa ciidamadii hore arrintan ayaa kaalinta weyn Turkiga inuu ka qaado wixii ka dambeeyay 2011 markii Turkiga Soomaaliya u soo gurmaday si uu gargaar bini'aadanimo u gaarsiiyo dadkii macluusha daran xilligaasi ay ku haysatay gudaha geyigeena isla markaana kadib wuxuu bilaabay dib u dhis noocyo badan ah oo ay ku jiraan dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha sida dekadda garoonka Aadan Cadde International wadooyin waaweyn oo ku yaala magaalada Muqdisho xarumo caafimaad iyo goobo waxbarasho Turkiga ayaa ugu dambeyntii wuxuu ciidamada dawladda Soomaaliya u diyaariyay xero lagu tababaro oo laga hirgeliyay duleedka magaalada Muqdisho markaas oo muddo yar gudahood la dareemay isbedel la taaban karo oo ku yimid awoodda iyo muuqaalka ciidanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska iyo militariga sida gaarka u tababaran tiyo ay dheerta ciidamo si gaar ah loo tababaray oo la geeyo gudaha dalka Turkiga macluumaadka aan helayna waxay sheegayaan in markii hore dhalinyarada dalka Soomaaliya looga qaaday tababaro kala duwan in markii Turkiga la geeyay lana ogaaday kartidooda la bilaabay in la geeyo magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga si halkaasi loogu siiyo tababaro dheeraad ah iyo in loo tababaro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay drone ka mid tahay taasoo muddooyinkii ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada Soomaalida ciidamada Turkiga oo u tababaray Soomaaliya waxaa kamid ah ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad kuwa sida gaarka u tababaran ee Gorgor iyo kuwa kale sidoo kale Turkiga wuxuu gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka dhisay saldhigiisa ugu weyn oo ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa saldhiga ugu weyn ee Turkisom waxaa gacanta ku haya ciidamada qalabka sida ee Turkiga waxaa ka qalin jabiyay kumanaan booliis iyo military isugu jira kuwaas oo u qalabaysan sida dhigooda Turkiga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda hogaaminaya oo fulinaya howlgallada ka dhanka al-shabaab waxaa taasi daliil u ah bilowgii sanadkan magaalada Sabiib ee istiraatiijiga ah waxaa lagu qabtay howlgal ay hogaaminayaan ciidamada Soomaaliya iyaga oo kala wareegay al-shabaab macluumaadyada kale aan helayna waxay sheegayaan in ciidamada sida gaarka loo tababaray ee dawladda Turkiga iminka lagu arkayo xarumo badan oo ay ku sugayeen ciidamada midowga Afrika halkaas oo loogu diyaarinayo inay la wareegaan ammaanka guud ahaaneed ee dalka danjire Francisco Madeira oo ergeyga gaarka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya wuxuu yiri howlgalkaani waa mid wax ku ool oo la taaban karo oo lagu fulinayo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya gabagabadii waxaa muuqanaya horumar la taaban karo oo laga gaaray dib u yagleelida ciidamada xoogga dalka labadii sano ee ugu dambeysay tallaabooyinka muuqda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ku horumarinaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay u damaanad qaadaysaa iyadoo dib la soo kabasho degdeg ah iyo dib u dhis xooggan